xildhibaan maadaama telefoonka adigu aad ku jirtid su-aashan aan ku weydiiyey saddexaad kaalinteeda qoraaga iyo halabuurka maanta jira ay ka geli karaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya muxuu yahay xilka ka saaran wacyigelinta iyo baraarujinta ummadweynta Soomaaliyeed markale maxadsan dadku xilka iyo waajibaadka laga saaran ka dalka hanaa xasiloon ama dowladnimo oo ay Soomaaliya yeelato waxaan ku xaqiijinayaa in aan wadno dadaal aan haba yaraatee lahayn wax hagar ah ujeedadiisuna ay tahay halganka hanaan dowladnimo iyo qarannimo oo ka hana qaada mar kale dalka Soomaaliya ujeedadiisuna ay tahay helitaanka nidaam suga oo xuquuqaha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo adeegooda si loo xaqiijiyo taasina waxaan hadiyada shacbiga Soomaaliyeed la garab taaganahay sidii aan ugu samayn lahay wacyigelin iyo baraarujin joogto ah tusaale ahaan nabadqabayaasha xalafadida shacbiga Soomaaliyeed waxaan la galnay dagaal dhinaca afka ah waxaana dad badan ay caawa ka markaati furayaan marka laga garaacaan inta fadhida stuudiyaha TV-ga homepage magaalada London ee garabka barnaamijka naloo soo gudbiyo hanjabaado joogto ah walow aan haddana maanka iyo xusuustaba ku hayno sidii danaga ahayd ee jiriyey eedan xariistii jannaxasiye cali jaamac ee ahaa muslimiinta ku dhaqay mu'miniinta qaasa gaal maxadka ku dhowra oo magan fataa dhaama waajibaadkeenu in uga leexanayno hanjabaadana loo jeediyey in la cabsi geliyo marna uga leexanayno adeega shacbiga Soomaaliyeed waxa garan kartaan caawaan kamid ah inta fadhiya stuudiyaha Hussein Shire jaamac xeestii qalqal qamahna may dhaafinahay laabta iyo dareenka shacbiga Soomaaliyeed sheekay gudahaan haddana dadka qaar waxay u haystaan soo bakteriya laga adkaanayo kooxaha diimaanka ku aqaranimada iyo madaxbannaanida gudahaan dhulka Soomaalida ay dadto xoog military ama gacan dowladda shisheeyaha matalan laakiin afwaaniinta fanaaniinta qorayaashu waxay ay ka ahaayeen halkaas soconaya ujeedadiisuna ay tahay inaynu dib u aragno dad Soomaaliyeed oo xor ah aad baa mahadsantahay xildhibaan Xuseen wuxuu isu xasuusiyay waxaad ka tirsantahay kooxda qayladaan waxaad samayseen heese aad u fara badan oo ka hadlaya arrimaha Soomaaliya kooxda qayladaan heesaha halkan lagu soo koobi karo waxaan jeclaan lahaa inaan xusho heesta ugu dambeysay oo samayso dhulgariir la yiraahdo maxaad u samaysay maasqaabkeen u samaysay maxaad kula hadlaysay ummadda markuu horeyso maasanay duraan walaalkay xildhibaan asna sidoo kale iyo walaalkay runtii aan jeclahay farax martire oo aan aad u jeclahay runtii oo ragga aan ku dhaarta kamid ah heestaas dhulgariir waxay ahayd run ahaantii ma fogeyn waa hees weyn jirta ama asbuuc way jirtaa heesatan sida doctor sida uu xildhibaan ku sheegay hanjabaad baa waxay ka timid dhinacaas imanka odayaasha ee dhibka badan ee jaadiidka taas oo kooxda qayladaan iyo dadka wadaniyaasha ay ku dhaaranayaan gaar ahaan waliba aniga ay magacayga sheegeen oo ay yiraahdeen koox hees la yiraahdo xarakaatu shaydaan ayay arkeen oo aad uga xanaaqeen oo yiraahdeen xarakaatu shaydaan oo kooxii al-shabaab la dhigi jiray xarakaatu shaydaan loo bixiyay oo aan u sameeyay markii hargaha saamaha ay ciyaalka yararka ah ee 16 jirada ah iyo hooyooyinkoodii la socday ay xasuuqeen kadibna ay suuq ay wararka kala hayeen waanu ka guuleysano gaaran jibinay maanta ayaa heesta horta ayaan sameeyay xarakaatu shaydaan kadibna ayagu markay arkeen dhowr bilood kadib bay sanjabaad soo direen sanjabaaduna way waligood waa iska jirtay oo wuxuu yiri colaad barweyn aan ugu maray jirin doorshaan ma uga dhacay way iska jirtaa sanjabaadu laakiin midaan ayaa ugu dambeysay kadibna adigu abwaanada kamid ah kooxda qayladaan ma ahan laba qof saddex qof waa mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin weeye ayaa markuu arkay ka soo jawaabay markiiba uu yiri Xuseen adigu heesta aniga iidana ka jawaabay kadibna heesna dhulgariir ayuu sameeyay laxankii baan u sameeyay علي وحل يا عبد السلام علي موسى قبصته وجوجا سودان وانا لو ما هدعينيا runtii waana salaamayna ayaa sameeyay runtii waa ninkii sameeyay qoorta gooya bahalada weeye runtii marka sida heeso sidaas ku timid kadibna dhulgariir ku dhacay weeye dhulgariirkii baa hadda ku socda aad baa maasanta aan farsamayaqaanka ka dalbado heestii dhulgariir ee ugu dambeysay ee soo
saartay kooxda qayladhaan oo ku luqeynaya Xuseen Shire waana isu soo noqon doonaa haddii alla idin
dhacay dhul gariir ma idinku dhacay aad baad u mahadsan tahay farsamo yaqaan cali naaji oo noo saaray heestaas dhulgariir waxaan dadweynaha xasuusinayaa barnaamijku maaha barnaamij fana laakiin wuxuu ku saabsan yahay hal abuurka kaalinta uu ka qaadan karo ummadda soomaaliyeed heestaasna waa heestii ugu dambeysay ay samaysay kooxda qayladhaan oo ku luuqeeyo xuseen shire inta aanan faarax murtiile oo laftirkiisa howlo badan haya aanan usoo gudbin xildhibaan oo qadka telefoon ku jira xildhibaan ma meeshaa xildhibaan maadaama qadka telefonka aad ku jirto aad jecelnahay inay dadweynuhu isticmaalaan qadka telefonka dardaarankaada ugu dambeeya ee barnaamijka ku aadan iyo ummadda soomaaliyeed kusoo dhawo waxaan rajaynayaa waxaa jirta malaha dadka soomaalida waa kastabaan waxaa nala leeyahay haddayna nahay halabuurka qorayaasha abwaaniinta iyo guud ahaan fanaaniinta soomaalida ahi inaan ka gacabsanay doorkii aan ku lahayn wacyigelinta iyo baraarujinta dadka soomaaliyeed laakiin waxaan xusuusinayaa sidii daway ah oo markaleeyid ashir noo faarax bacalle oo ahayd dadweynuhu su-aal diiran baan idin dareensiyey gartii adiga kuudaa degtaa lagu dawoowaayo dadkuna kuwa qancaan been cadoon mara ku dahnay fanaaniinta halabuurayaasha qorayaasha soomaalida ah iyo guud ahaan bahda isku abtirsiyaha ah ee caawa ay kamid ahi ay joogto anna aan dhinaca telefoonka kaga jiro u xaqiijinaynaa shacbiga soomaaliyeed inaanan marna ka gaabsanin dagaalkeena ku aadan hannaan xasiloon oo soomaaliya ka hana qaada waxaan leeyahay waxaa la joogaa maalmihii dadka soomaaliyeed cadaabkii la baday ay ka bixi lahaayeen sidaas darteed waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu garab istaagtaan oo hiilinta xaqa inaynu noqono ummad la mid ah ummadaha caalamka dushooda ka jira ee leh dowlad difaacda ama ishaysirka dhexdeena waa meeshiisa laakiin inaynu qaran noqono oo qaran ahaadno dagaalkeenu kaasa ahaado aada iyo aad ayaad nagu mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay xildhibaan waana kaaga mahad celinaynaa barnaamijkan dagaal qayb qaadatay adoo ku jira qadka telefonka aad baad u mahadsantahay saaxiib